هلو السلام عليكم خير برواق على نرجينيا وولاشين فتحية اسكبر ورحمة الله سبحانه وتعالى وحن كرجينيا إن مالنتي وجهريسي ربضانتو أي إذنكم بلعبتي بش برواق يقبو يدقناشو إلهي إذنكي إلهي هينو قبوتشي إلهي هينو هوليري إلهي إذنكي you know waxaan is dhaxdaa marmarka qaarkood in badan isweydiiya dhowr jeerna aan ka hadlay oo dadka qaar ay ugu bacdoodeen waxaan dhaxdaa hadii aan dhulkii joogi lahaa hadeerto hello inta aynaan ilaawin fadlan subscribe kambalaalkana taabo oo waliba raaci comment like and share fatxiyay waxaan isweydiiyaa maxaad sameyn lahayd lama horaan waa cawska jilaalo dadkiiba intii badnayd dhulkoodii bay aafiyas la joogaan marka waxaan israahdaa tolow sidaad yeeli lahayd maxaad sameyn lahayd haddii maanta aad ku kori lahayd dhulkaagii oo aad ku weynaan lahayd oo xilligan dee ama jeclow ama ha jeclaan oo danta ku badi lahayd inaad dhulkaagii joogto maxaad sameyn lahayd dad badan baa markaa igaga xanaaqo igu yidhaahda fatxiya adba waad soo tahriibtay maan soo tahriibin anigu laakiin dee ama soo tahriib ama say doontaba ku kaalayo waxaa isweydiin mudan yaa maxay dad badan oo qurbaha yimaada uga noqdaan oo dhulkii u aadaan markay muddo joogaan oo looga furfuri kari waayaan dhulkii xaqiiqadu waxay tahay dhulkii markay dadku ku noqdaan dibadaha markay ka tagaan ee dhulkii ku noqdaan waxyaabo badan baa u iftiimo oo u baxa waana sababta keentay inay dhulkii ku nimcaystaan dad badan oo dibadahan ka tegay because waxay fahmaan sirta nolosha wax la yidhaahdo iyo dhulkeenu sida uu nimco u yahay baraaraha iyo bashbashka iyo nimcada taala markaasay ka faa'iideystaan isweydaar baa dhacaaday jeer dadkii dhulkii joogayna xaggan ay usoo socdaan dadkii dibadahan joogayna xaggaasay usii socdaan marka waxaan jecelahay inaan idiin soo bandhigo Soomaaliya siyaabo aad dhulkiina uga faa'iideysan kartaan oo waliba idinkoo faraxsan oo excited oo maaragtay aad uga taajir kartaan dhulkiini oo uga nimcaysan kartaan oo adduunkii hadeerto isbedel baa socda meel walba dadkii waxay barteen sirtii nolosha iyo sida hawsha yar ee ay xoogooda iyo murqooda u isticmaali karaan ee waliba ay ugu nimcoobi karaan iyagoo oo dhulkoodii jooga waxba ma yaalan meel halaad kusoo qabaamaysaan idinkoo dhulkiini jooga ilaahay baa idin badaye sidaad uga faa'iideysan lahaydeen ayaan idin tusayaa siyaabo badan oo kala duwan oo maskaxda iyo maankaba idin buuxisa oo bariba dhaqaaqdaan idinkoo waliba u baahnayn investment ba marka waxyaabahan aan idin soo bandhigayo waxyaabahii aan sameyn lahaa oo waliba haddada wallahi oo billahi oo tallahi haddada haddii aanan afdheero inta leegsidan oo aan u babac dhigin inaan Soomaalida muraayad hor hayo oo aan runta indhaha ka saarin intaan soo noqdo oo ilaahay ugu ogyahay ayaan sidaa u noolaan lahaa oo sidaa sameyn lahaa tabti aan sameyn lahaa ayaan idin sheegaya wallahi oo billahi oo tallahi oo haddaan helayo aan u level guudiyeen laakiin hadeerto I know inaan samaystay dad badan oo aan arki karin oo maaragtay aan weligood runta loo sheegin marka lafahaygaan uga baqayaa to be honest with you laakiin adduunka waxaan ugu jeclaan lahaa oo my dream ah maanta inaan fursad daahili karayo waan ma lahaa with nothing waxaan idin tusayaa sida aad badda iyo ciidda iyo dadibka iyo muxuu ahaa dhagaxa intaba aad uga dhergi lahaydeen ee dadku uga wada dhergeen waxaa laga yaabaa qaar badan oo idin kamid ah already waad ogtihiin qaarkiina waxaa laga yaabaa inaad dhayalsanaysaan let's go waa tahay dhagxanta ayaa xusuusta anigu markaan waqooyiga aado hadee jeer dhagxanta waan arki jiray waxaasoo kala nooca adduunka waxaasoo dhagaxa waxaas waa wada dhagax wax walba oo qurux badan including diamondka waxaasoo dhan waa dhagax dhulkeenana mid aan ku jirin ma jirto bal dhagaxyada soo ma wada garanaysaan badda inta badan ka buuxaan waxaas waa everywhere dhulkeena waxaasoo kala nooca kuwaasi waa kuwii badda kuwani waa dadibka waa dhagxanta dadibka oo kala nooca waa rubies waa methods waa muxuu ahaa diamond waa de kala nooc mid aan dhulkeena ku jirin haba yaraatee ma jirto waa sapphire
you name it nooc aan dhulkeenu ku jirin kana waa rubiska nooca la yidhaahdo ma jirto adduunku waxa uu dhulkii soomaalida ugu soo qamaamayaa iminka ee aan loogu ogolayn dowlad samaysi nimcada ku jirta ee kaydkaabaa la ogyahay already dad badan baa jaqa qaar badan oo dibadaha ka tegay already way bilaabeen ma garatay meral detector yar bay qaateen kuwa dibadaha ka tegay soomaalida oo kale dee meral detector ka yar bay sii qaataan oo aan wax saaw badan ahayn $100 meelahaas ama 100 iyo xoogaa laakiin dadku ma wada haystaan gabadhan oo kale hadda wadanka Philippines weeye magaceeda waxa la yiraahdaa YING baaldiga yar iyo dismiska iyo dubahaasay sidataa maalmo ka hor bay sii eegataa meelaha expert bay ku noqotay meelaha depositku ku jiro hadda dhagaxa intaa leega quruxda badan ay sidataa waa emerald waa one of the most expensive kuwa ugu qaalisan dhagxanta ugu qaalisan maaragtay marka diamondka laga yimaado weeye markaa bal intuu leeyahay de halkaasay galaysaa qunyar bay de sidii soomaalida degdegi maysa soo dhiraandhirinaysaa marba dhagax yar kor u qaadaysaa marba maaragtay kusoo dhaweynaysaa kamaradeeda YouTube channel bay leedahayoo waxaasay baarataa maalin oo dhan maalintii waxaa laga yaabaa $1,000 inay shaqaysato ama ka badanba marmarka qaarkood $200,000 inay hesho waa laga yaabaa one day hadday doonto bill of qaadato hadday doonayso de marka waxa weeye waa taa way dhamaysay lightka yar bay sidataa way ku ifinaysaa quality-ga eegaysaa waatan haddana waa isla iyadii iminka xaaxeeyay urursanaysaa webi yar bay imanaysaa waa kaas waynu wada leenahay meelaha maaragtay balliyadaa yaryar balliya dhanka waqooyiga la yidhaahdaa xaaxeeyadaasoo dhan bay soo urursanaysaa waa isla iyadii yiin gabadhii marka xaaxeeyadaasay dubbe la dhacaysaa way jajabinaysaa intay halkaa beriga usoo saarto pearls bay kasoo guranaysaa pearls xaaxeeyadu pearls bay leedahay bal waxay pearls kasoo guratay eega quruxda waa the most expensive pearls weeye ayay kasoo guraysaa xaaxeeyadu baddana way ku jirtaa webiyadana waa laga helaa badda gunteeda laga soo xaabsadaa oo dadka qaar kasoo xaabsadaan waa taas intaas hadeer waa waxaweyaan waa adigu $1,000 maybe $1,000 iyo xoogaa maalintaa way soo shaqaysatay markay ugu yartahay waa qof cajiiba gabadhan yiin waa tan haddana iyadoo diamond bay maalintan helaysaa maalintan eeg waa dadib waa dhulkaa yaree dadibka yare ahee maaragtay aan buur sarena ahayn waa taa diamondkii ugu qaalisanaa adduunka ayay maalintaa heshay dee $2 milyan weeye maalintaas ayay ku dhufatay waa kaa saasay usoo dhiraandhirinaysaa qunyar ku degdegi mayso hareerahay dismiska marba gelinaysaa saasay usoo dhiraandhirinaysaa sidii qodaxda markaad kasoo dhiraandhirinaysay waa kaa almost dibaduu yaalaa almost bannaankay usoo saartay way soo dhaweynay marba soo dhaweynay ilaa ay bannaanka keento waa taa bannaanka keentay marba nooc buu isu bedelayaa waa diamondka nooca ugu qaalisanoo marba dhinac wakaa mar yellow buu noqonayaa mar blue waa kii blueha haddana mar dhow haddana wuxuu noqonayaa blue iyo yellow iyo waxyaaba isku jirjira waa kan pure yellow waa isagii hadeer noqday waa kaas olol u eg incredible wiilkan yar dhagaxa intaa la eg waxay ka heleen meel mine waa buurta hoosteeda waa meel already hore loo sii qodqoday waa buurta gunteeda hoose gudaha loo gelmaya banaankii waa amethyst crystal dhagaxa la yiraahdo de kulli maalin dhanbay ku qaadatay waa Canada halkani maalin dhanbay kulli ku qaadatay hadday doonto maalin iyo badh dhagaxaasi 50,000 buu ahaa maalintaa 50,000 bay shaqaysteen one day ka war halkan dhulka sidan u eegi waa dhulka diamondka laga helo dhulka jilicsan ciidda jilicsan baa diamondka inta badan laga helaa oo de koonfurtoo kale hadda diamond baa ka buuxa diamondka weliba maaragtay diamondka quruuruxa ah de West Africa meelo badan oo ku yaala laga helo meelahaas waa meelaha diamondka laga helo dhulkeenu waa qani waxaan xusuustaa waqooyiga markaan tago de waqooyiga dhul dadib oo saas u badan yahay moogtahay dhagxantaa waan faran jiray waan la soo bixi jiray waan urursan jiray de hadhowta waan iska tuuri jiray ilaa cidna uma arkayn wax micno leena yihiin ka buuxaan dhulkeena
ayaan dhaweyd wadanka Malawi la yiraahdo dhagaxii adduunka ugu weynaa the biggest stone in the world ayaa laga helay oo de emerald inay tahay baan u malaynayaa maqan iyo amethyst crystal and China qaaday ka waran China qaaday hadday doonto waa diamond de mooyi waa dusted weeyaan could be diamond inay tahay waa la qaaday oo hadda ciid baa ku ka fargaraysan waa kaas China iyada anaga soo baadhayno qaadayno waxay tahay soo why everybody wida wadankeeda joogta la eegi karaa marka barnaamijkan waxaan u bixiyay kororso waa kororsi adduunka Afrika u soo socda adduunkii meesha kaliya ee dihini maanta meesha kaliya ee dihin resource-kii adduunka ku haray sustainability wax la yiraahdo kaydkii adduunku waa Afrika yaan la idinka hormarin adduunkii saas uu idinku soo qamaamaya already saas la idin shaqeeyay nin walba nin quwa xilan nin iska baqada hal qarfsado war ka dhaqaaqa meesha let's go hello inta aynan ilaawin fadlan subscribe gambalelkana taabo oo waliba raaci comment like and share